kusoo barnaamijkeena music iyo fanka iyo fanaaniinta magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin Cali Qaasim kusoo dhawaada heesaha qof alle qofkii jeclaysta inuu heesaan noqdo dariiqa uu ku noqon lahaa iyo waxyaabihii oo asaga heesaa ku sheegan lahaa dariiqaas anaga ahaayo magacayga waxa la yiraahdaa Yaasiin cashar waxaan ku siinayaa singing lesson wax la yiraahdo singing lesson ka wuxuu yahay Soomaaliya ku haysta waa ku sheegaya nootooyinka adigu ay ku heesaysid iyo habka aad ku noqon lahayd in tune Ingiriisi aad u baahan tahay inaad ku heestid waa ku baraya habka loo aad u noqon lahayd in tune not out of tune just in tune waxyaabahaasi aan caaw diyaar u nahay inaan representative aan u sameeyno ku soo dhawaada casharada oo aad u baahan tahay inaad heshid Soomaaliya idinku heesaya ugu horeynta haddana Ingiriisi idinku heesaya singing micnihiisa naqaana wuxuu yahay waan ku taakuleynaa dadkan jeclaysta inay heesaan noqdaan ama gabar iyo wiil Soomaaliyeed kuwa yar yar iyo kuwa waaweynba ku soo dhawaada heestan for example aan misaal ahaan aan idinku heesayno micnaha ay yiraahdaan in tune ama out of tune aan idin sheegaya ku soo dhawaada thank you Jirati diftaamo jini lama shabeeyo شنو صنايا جاي حاسر ساس اون غنايا ان تشون بالي هذا waxyaabahaas thank you good lesson Soomaaliga saas oo noqdo heestasna basically waxay ka imaanaysaa jamaad heesta yiraahdaan weeyaan markaan ku heesaya out of tune aan ku sheegay sidee noqonayso jamaade أجعل مودا أنتو جلب قايل إجباه that is out of tune ما حرف قصير لو قلت لك جرب مركان كله يهاي ونوتة دي ويان حرف كي لو قلت لك صار نقطة حرف كي وحن أدينا في إنجليزي أنا أدينا I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, many some better. Like in my life, oh I know your image of me. حرف كسوين نقول I know your image of me. ما كان عارف تون كده كانوا نقولنا يا I know your image of me. What I hope to be. No. saas weeyaan wixii ku dhiman ana ku dhameystiraayo laakiin micnaheedu wuxuu yahay baro in tune iyo out of tune because heesaayas dadkan heesta Soomaalida ma garaacan music instrument practical nima yaqaanaan theoretical nima yaqaanaan waa ku adkaanaysa marka qofka si oo u noqdo heesaa fiican thank you I was born by the river in the little old town no just like a river I've been running ever since. Oh, it's been a long time coming, but I know change is gonna come. Oh, yes it is. Let me thank you for singing. God bless the singing. But la ilaha illallah, ilahi wa barakatuh heesaha. CD-aad hesheen promotion idinku sameeyay waxyaabaha aad of tune-ka ku heesaysiin magacayga waxa la mar saddexaad aan ku soo celinaya Yaasiin Cali Qaasim aan ahay sida loo heesaan ku bareynaa Soomaaliya because college uma aadan dhigan music practical lama taqaanid theoretical lama taqaanid I'm a qualified musician I've been in college for music please waxaan ka codsanayaa haddaad jeceshahay inaad heesaan noqotid nala soo xiriir waxaan music markaan ka hadlo dhalinyarada hadda oo Soomaalida oo jeclaysan heestan qaar badan af Soomaali ma yaqaanaan let me say in English language I first get into music at the age of 8 joined gospel style here where I was in a backing singer then I moved on to become a drummer and solo singer there where I started my music career age of 8 and now I'm 50 I'm still doing things you know what I'm saying marka waxaan ahaa fanaaniintii Soomaaliyeed music gospel wuxuu noqonayaa gospel uu noqonayaa waxyaabahaas oo kale aan ku soo bilownay music markaan yarnay anagu fahmaysaa tusaalahooda waxay noqonaysaa
waxay noqonaysaa for example gospelka wuxuu u kala baxaayo annaga koonfurteena waxaan qabnaa 4 xabo saalixiyo qaadiriyo axmediyo rifaaci waxyaabahaas ay qabaan groupka annaga aan ku soo koray anagoo caruur waxay ahayn madad ya mawlana madad ya habibullah madad ya madad ya Allah mawlana ya sakira mista sidi abu wahid mada taasi waxay noqonaysaa saalixiin noqonaysaa groovy rhythm back home markaan yara carruurtaan ahayn waxyaabahan oo ka bilowdo fankeena ka dambaan fanaan noqonay waad haysaa detailskayga please join me next time thank you